والله أرنتاس وأرين دعويس كذا رياب كذا نله madaxweynuhu xilkiisii wuxuu ahaa inuu waxan isagu ka warkeeno ka daba tago soo dhaliyo keeno sabab loo way karaan ma jirto deeqa caalami ahaayeen waxa kani Soomaaliya ka mid nahay state ka mid ah baynu nahay kuma waxinayn ba maamul goboleed ahaan si kasta lagu helay in la helay xilkii cidii loo doortay waxay ahayd madaxweynuhu meel ku sheegaan dee uga fadhina ilaa haddana waa looga fadhiyaa madaxweynuhu anu xasan waxba weydiin maayo badii xasan kan xabaalaha faganaya ee loo taaglaayahay isimadii xamar tagay u maarlaayihiin boqoloo isim isugu tagtay xamar oo u maarar weydayo baalay toontalka ay ka tala weyday habar ku dhanyahay umadiiba ka tala weyday islaamku iyo gaalada laftooda ka qoostay xasan marka xasan uu dacwo weydiin maayo xasan ma waxa la soo oran maayo xasan dadkii uu la soo cunay marka madaxweyne Firdhiye isaga uga fadhina waana ka doonaynaa waa la waayeen nama marto sababta ay noo mareen waxa weeyaan geel qayrahan lama dhiciye qayrahan ka maqal madaxweyne haddaanu wax qayraha ka maqal waa garaabe balahayd waayisteeda laakiin maadaama aan wax qayraha ka maqal waa kaaga fadhinaa deeqdii miisaaniyadii qaybtii waqooyi bari mudane madaxweyne waa kaaga fadhinaa waqooyi bari waa kaaga fadhidaabade waxa jirtay safar hore oo madaxweyne Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye uu ku tagay caasimadda dalka iyo deegaano kale oo ka baxsan guud ahaan dalka Soomaaliya dabcan mar walba kama warbixiyo wixii uu la soo kulmo ama mashaariicda uu helo madaxweynuhu hadda waxa jirta mashaariic kale oo dadka deegaanadan gobolka Cayn loogu talagalay iyaguna aan soo gaarin taas laftigeeda maxad ka oran lahayd taas way la mid tahay waxa weeyaan wixii qaldan sixistooda madaxweynaha looga fadhiyaa waana la isku daba socdaa waxaan xisaab lahayn ma jiraan inaguna de wax yar baa weynaado qoobad yar oo isu muuqatayna qoobada yarna dhibteeda leedahay hadiya jeer waxba kuma qarsoomaan marka tuwa waxaan qarsoomayn bay walba sagaaradu aasaastaa baa la yiri waxaan qarsoomayno waa saas oo kale sida mahmaada sagaarada loogu mahmaahay marka mudane madaxweyne wixii leexleexday iyo wixii qaldanba sixisteeda ummadda madaxweynaheedii baa tahay adaa lagaaga fadhiyaa maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda mandatekii ka dhacay wadankuna doorasho waadayo dabcan soo ma ahayn in madaxweynihii uu dib u soo laabto oo dadkii iyo deegaankii uu matalayay uu dib ugu soo laabto oo uu barnaamij kale uu abuuro oo ma yiraahdo dawladdii de wixii xaq aynu u lahayn waa ka soo weyn uu ku qanciyo bulshadii uu matalayay ama inuu ka hadlo halkaas waxaan u maleynayaa teeni horeyba ku jirtado anagu welida lacagtii inay jirto anagu madaxweyneyga waxba kamaan maqal xataa waayistan la leeyahay waxbaa la waayay baan dareenkaygaba ku jirin sababtu madaxweyne Firdhiye waxba kama maqal waxbaan waayay isagan uga fadhiyaa waaniga yidhi waxbaaba la waayayba dee ma qabo hadduu wax waayay dee wiima laabaylata dee wuxuu la aaminsan yahay haddaa waa maxay haddii la waayay miisaaniyaddii iyo kabkii madaxweyneheenii oo meeshay ka jirto dee weligu daba socdaa bay aniga ila tahay suuragal maa waa la waayay uma fadhiyaba dee waa la waayay lacala haddii la waayay iyo haddii la helaba kan uga faraysaa madaxweynaha soo ma ahayn inuu dalka dib ugu soo laabto oo bulshadii dareenkiisa la wadaago dadka miidiyaha iyo dhulka dhan baa ku jirtaa waa la waayay waa arkaynaa dabcan way jirtaa laakiin madaxweynuhu wuxuu door mooday isaga hadduu aamusay hadduu ka aamusay waxna uusan hayn wixii loo idmadayna uusan hayn eedhe ummadiisu u idmatay ummadeeda xaquuqdeedii aanu hayn asuu aamusan yahay dee isaga wase looga fadhiyaa baaq nabadeed ka u dirayaa labada beelood ee qishin iyo jacsiyaad oo siyaabo badan meediyaha loo dhaqdhaqaajay qaab ayaan ahayn loo dhaqdhaqaajay waxa weeyaan marka hore arrintaasi waa labadaas ciidan beeleed
beelana uma dhamee waa ciidamadoodii waxsaas malaa inta deegaanka madaxa lagu xoor ku eeg mooyaane inaynan u dhammayn baan dee aaminsanahay sidaa awgeed waxaan u dirayaa baaq nabadeed labadiinnu waxaan idiin soo jeedinayaa inaad nabadgeliyo dadka nabadoonka ka aqbashaan marka horeysa dhulku waxa weeyaan dhulku dadku ka dhaxeeya islaamku ka dhaxeeya lama kala laha waa la wada manafacadsadaa wuxuuna kala leeyahay deegaan xooleed deegaan magaaleed deegaan biyood deegaan beereed meel walbana dabeecadda lagaga tashado ama ay soo ahayd in laga kaxeeyo ma aha taasi waa ta magaalaynta magaalada hala joojo ta xigta waxa weeyaan jaacsiyaad iyo fiqishini iskarta waxaa tihiin waqooyi bari xilkaad u haysaanna garta waqooyi barinimadii idinkaan idinku ogayn geed hoosti baannu isku dilaynaa waxa caqliga geli kara maaha la idinkana yeeli maayo qolada geedka hoostiisa faarfaaratay waa khaldanayd qolada kale ka daba tagtay ee ciidu dil weyday dul qaadan weyday adkaysan weyday ka raagi weyday ku noqnoqon weydayna way khaldanayd hadda ogaado waqooyi bari maamulkii la oran jiray idinkaan idinku ogeyn madax meel ka sarayso la salaaxa ma jirtaa leeyahay fuushin iyo jaacsiyaad baan ku ogeyn hogaamintiisa dhaqdhaqaajinta halka colaadda laga dhaqdhaqaajay dareen kale muujinaysa iyo arrimo khaldan baa ka soo yuucan baan aaminsanahay waxaan leeyahay arrintaas ka noqda ummadda reer waqooyi bari iyo islaamkana boolojis siiya labadiinnuba waa khaldantiin intii dhibatayna allah u naxariisto inta bogtana allah inoogu boogadheeyo halka intaasaan kaga tegayaa dhaqanka iyaga dhinaca dhaqanka nabadda u tegay halkaas waana salaamaya aad iyo aad baan u salaamaya isimada ka kala yimi laascaanood iyo dhaqanka macnaha iyo buuhoodlaba ka kala yimi ilaa idinku guulaya nabaddaas dadkaan runta u sheega waxay yihiin cadaaladna ogaada dhinacyadana waa laydinkaga jiraaye iska la socda taas intaasaan kaga tegaya inta xigta waxa weeyaan baaqyo nabadeed baa halka laga jeediyado garaadka gobolka buuhoodle cayn ka jeediyey jawaabta ka soo noqotayna waa fiicnayd oo waa qaadanay bay yidhaaheen hadalku calaalintiisa iyo gugudadhiciisa ma wanaagsane laakiin waa qaadanay bay yidhaaheen nimankii ubaaqa u jeediyey haddee waxaa wanaagsan in laga dhabeeyo maalmo laba wiil baa la kaxaysanayaa ayadaynu isu taaganaa inkastoo koleyba laga yaaba biniaadamku inuusan ka wada socon wax badan oo dee odayaasha baaqa jeediyey iyo kuwa kaxaystay dadka xoolodhaqatada ee ayada jooga waxaa laga yaabaa inaynu isu warhay waxaanse leeyahay dee xaggan waa laysu warhayaa xaggaas ha isu warhayso oo wixii dhaqdhaqaaq dhaca oo laga daba tago tiro buuxiska la ururinaya dadka xoolaha dhaqanaya iyo dadka ayada jooga iyo dadka waddooyinka haya ee lagu tiro buuxinaya maxaabiista laascaarood ku xidhan ee dagaalkii lagu qabtay ee loogaa ee cad iyo yaan laysku dabiqin dadka xoolaha la jooga oo ayada masaakiinta aho shiraalkii abaaruhu ka daaleenoo biyolaantu hayso oo habeenkii baqayooo dhibiba u soo dhammaatay yaan loogu darin camcamin kale inta marba 4 wiil la soo diro taasina halkaas intaa weeye ha laga fiirsado arrintaas ha istaboosho arrintu waxaynu ku ballanno iyo waxaynu isnidhaahnaa ha hirgalaan siyaasad waa ka maran yahay warkaygani ku saabsan xagga dhinaca jiidda beerahan dhulbaantaha iyo habar jeclada waa siyaasad iyo diimaheed aanu waxba ka yar dariskow tolow hays waafaqdo nabadda aynu ku dhawaaqano ee garaadku ku dhawaaqay
وكلي ما قبل كنا بوكيل كيا إنه نبض كل واقع إلى ما أنت يا مالنتي مركي قويس لك كذا هرايبا نبض كل واقع أنت وكالني ما أنت وكالنا ورنبض قوة الداقة دتك تشيده ورنبض قوة الداقة ورنكي نبض وياو ها وحسك علي وربالباني هو كذا نكي نبض diida isaga meesha ku socdo anagu oranayno siyaabaha qaarkood laakiin waxaan leeyahay nabadgelyo runa oo lagu wada daaqo oo aqligu shaqeeyo oo wax laga bedelo nolol xumadan waa laga maarmaan gaashamaan tagnay dhawaan ragii halka aan ugu tagnay maamul baan watay aqliga kuma tagin maamulka kilka aad iyo aad u mahadsan oo mahadcelinaya hogaanka nabadgelyada wadii barasabe goboladaas halka isugu ka yeeyay aadaan ugu hambalyeynaya isaga hogaaminayay ciidamada hagayay aqliga iyagana kuma tagin amniga iyagana kuma tagin laakiin rag aan isu tagnay isku aragti baanu ka hayn xagga dareenka nabadgelyada iyo dadka dhexdiisa wanaagna waa kala kulannay wixii loogu socdayna wanaag bay ku fuliyeen taana waxaan leeyahay arintii nabadgelyada aanu ka ballanay oo ahayd in la dhaqdhaqaajiyo nabadgelyo dadka dhexdiisa oo nabadgelyo lagu wada daaqo ya garaad soofa ku dhawaaqay hadduu ku dhawaaqayna dee tiyaan dhiciina waa inay ka hirgashaa annaguna waa ku dhawaaqanaa waa la qabnaa waa dareen jira intaas waa intaas inta xigta waxa weeyaan ummaddu ummad walba inay garato ayada iyada leh waqooyi bari meel lagu ogaado ilaa hadda garan maayo xaalkeeda halkan waxaa ka soconayo waa inta la wadaado safaradaha meel la geenayo maamka yar ee meesha la sita kamid baynu nahado nima muuqato cid ka shirtay cid ka hadashay cid ka difaacsan cid ka dhaqdhaqaaqsan qodobkaas waa qodob siyaasadeed waqooyi bari maamka wuxuu ku jiraa wixii jeebka ku sito haddii aynu ku jiro maamkaas aynu arkayno oo laynaba sheeganayo oo aan dowladdii federaalku ka hadlayn waqooyi barina ka hadlayn oo saraakiil hadday tahay qaal hadday tahay isma hadday tahay dhaqan wardadkii siyaasadda ugu madaxda weli baarlamaanka weli xukuumadda mid qolo ka dhaqdhaqaaqaya ama ka shirgalay ama wax kale ma arka ima muuqan daan khaldanayn marka waxa weeyaan wax istiraatiijiyado meel inooga yaal wax ballan aynu ka leenahay wax ka diyaar garowga gal ah mustaqbalka dhow iyo ka dheer midnaba ku saabsan intaana de waxbaa la rarayaa dal muslim waxaa la geenayaa dalkii masjidkii islaamka ee labaad ee qiblateynka yaa marba safaarada la geysanayaado arankii yuhuudda la suranaya oo magaceenni oo ku jiraayo hala ogaado dareenkeennu ma garanaya suu yahay culimada dhulbaante culimada waqooyi bari iyo cuqaasha iyo garaadada iyo isimada dhammaantoodba iyo maamulkii dhammaan dhisanay madaxweynaha lahaayee baarlamaanka lahaa I don't know waxay ku talagalaynu ka leenahay arrintaa garan maayo